السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أنت مالك صندوق داونا سن هلكني وهم دود أنا وأنا عبد الرحمن وحكون رجينا إن عفماقة مالك صندوق داونايس هدي أن لك وقت واد ما هتصنت هاي برنامج كنا شر قرية صاحب هذا يسوع مالبا لو ذاك هدي أن نقول صبت هينا نقول صبير وده بقول لكم بصارنا هاي رمضان كنا ودا ما ربع عيد ونكسب باقو صعنا نقول صبير وتنا كسبسكرايب نوصل هذا برد فيسبوك إلى صوتنا فلو يصوده رمضان كدينا أيو مارتي inooga batay 22 ayaynu soonay 8 bari ayaa dhiman insha Allah taala bari toolana caawa habeenkii 23aad waa habeen khatar ah la iska ilaaliyo hal cibaadaysto inta kadib waa casharadeenii taxanaha ahaa dhaqankeena sooyaalka ee xeer ciise waxaynu iminka u nimidnay buuga dhuuxiisii ayaynu maanta joognaa عشر آدو قيمة بدن وهدات قف صوماليا تهي تسالو وين كون نقون دونا أيانو ما تقادنينا حيراركي يا شروعية دي يا رقم دي سوتشري مد آدو قيمة بدن وكوا كمدا بينو عاوق قادن دونا سؤال هدي لوي ديو جوابت هذا اللي يابا ماذا حين كفكرتو دبيدنا نينا سيدا أتقانا باي خلدنت هينا دوغا جوابتو أيانو بوغا كدحلي oo mowduuc ahaan loogu qoray buugga laakiin macnaha ku jiraayay oo aad u qiimo weyn yahay su'aashu waxa weeye geesi waa kee su'aasha bal hadda adigu isweydiiyo geesi yaad u taqaanaa geesi ninkaad u taqaano waa ayo ninkaa dooniba u aqood geesi uga buuxa ee geesi magaca la yidhaahda qaadan kara waa ninka sifooyinkan leh marka koobaad ninkaasi geesiga la yiraahdo waa nin ummadda u dhaxeeya eekada ummadda nin u dhaxeeya oo aan la kala xigin weeye waa qodobka labaad ee waa nin aan dirir islaam iyo mid sokeeya midnaba aan ku dhiiranin gelin ka talinin dhiiri gelinin dadkan aan ku abaabulin waa midda saddexaad waa nin xadgudub shisheeye aan ogolayn geesi waka inuu geesi markii aan naqaanaa ninka BKM ka rida ee dadka xaaqa dadku xaaqaysa wacay ilaahu may kuwa walaaladii xataa ahaada BKM ka maridi yaqaanaha isagoo taagan buu ridaa Soomaa aha yuu ku ridaa isma weydiinadna Soomaalina eeg hadda yuu ku ridaa isma weydiin waxaynu is weydiinaa geesi waa ka BKM ka rida dayuu ku rida wabeeniga hoos baxdayba maba aynaan fahmin bayuu ku rida war ninkan islaam iyo sokeeye midnaba ku saqajaabin shisheeyana aan ogolayn geesigu wakaas faataa dhugle bay Soomaalida u badan tahay waa hagaag geesi magaca la yiraahdo ninka la qaadan kara waxaa kale oo loo yaqaan inuu yahay nin deeqsi ah oo dabacsan ya nin deeqsi alladina yabkhaluun ويأمرون الناس بالبخل هكذا diinteena waa geesinimada way ku sheegtay deeqsinimada inay tahay qof geesi ah baa wax bixin kara laana marka wax bixinayso shaydaan baa kugu soo booday cayd iyo faqri iyo balaayo ku tusaya maxad ka faa'iideysaa ku leeyahay xagga naftiina way diidaysaayo gaaji ku sawiraysa geesigu waa labadaba intuu xagga isaga tuuro wax bixiya waa kuwa ilaahay mataqaana uu ina leeyahay kuwa ilaahay mataqaana alla ka fog dadka waxa kamida alladina yabkhaluun kuwa iyagu bakhayla oo bakhaylnimada intay ka taageen way ya'muruna nas bil bukhli dadkana bakhaylnimada amraayay kuwaasu magaran way kuwa in Allah la yuhibbu kull mukhtalin fakhur mid faam badan oo fata dhugla oo beenaala oo bakhayla oo gacan adag ilaahay ma jecla geesi ninka weeyaan ee bal tilmaantaana qabso tilmaanta kale waa ninka dantiisa ka hormariya danta waa ninka dantiisa danta ummadda ka hormariya ee kada danta ummadda ayuu dantiisa ka hormariya waa sifooyin aad iyo aad ula yaab leh waa nin haddii reerkiisa iyo reer kale ay isdiriraan
aan seeflabood ahayn oo aanan durba safanaynin ee intuu dhexda istaago nabad inuu dhaliyo oo deegaankiisa iyo dadkiisa iyo sokeeyihiisa iyo soomaalidiisa iyo muslimkiisu inuu nabad ku wada daaqo ka shaqeeya weye nin iska dhiirida iska ficil qaado reerkanagii tolla ay dhaha ma aha haddaad tollaaylo nin laata tolla ay ku kacdo oo dadka tolla ay ku layso geesi matiida fulay bayla abaato naftiisa u baqayo ruuxa u sakeeya xabad madax kaga dhufanay geesi waa ninka haddaba maadaama tilmaamaha aynu geesi soo qaadanay waxaa buugga lagu xusay rag mudan geesinimadaas xigmadna ka tegay geesinimada iyo sifahaasna soo maray oo deegaanka ciisaha taariikh ku leh oo soo wax maamulay oo soo hogaamiyey nabad iyo colaad abaar iyo aaranba raggaa sifahooda ragga ku dayda weeyaan ragga kala badbaaday raggay soo gardaadiyeen weeyaan ragga ciise maanta dhul aan kala lahayn dadkuna isku mid u yahay dhuunigana uu ka dhexeeyo xeerkaana leh ugaaskana leh halkaa nin u taliya go-aanka mataqaanaa uu siiyo yani guddi baa go-aanka bixisa laakiin halkaa nin ku hirata ummadaasi meeshii laga soo gardaadiyey waxaa ka mid a waxyaabahan wanaagsan waxay yaqaanaan geesi waxa uu yahay dabeedna isma dilaan waxay ogyihiin hadday isdilaan inay geesi noqonayn fulay noqonayaan waa hagaag waa la isqordoofay qordoofayaal badan meesha waan ugu tegi doonaa gacan qaadiya waan u tegi doonaa dagaal waan u tegi doonaa dil waan u tegi doonaa see loo xalliye wey sideena miya 40 sano waalin lagu jiraa iyo qori dhacaya subax walba mise markaa waa la soo afjaray bal xigmadda cashirkeena caawa ku jirta halkaas kala soco allah naxariistay ninkii la oran jiray cabdalla cagane ayaanu soo qaadanaynaa oo sifaha geesinimada ku sifoobay ninkaas oraah baa laga hayaa taariikhyahanadii raggii la noolaa ay soo wariyeen wuxuu yidhi dirir ha ku degdegin tu sokeeyana haba ku darin dirir ha ku degdegin dagaal sidiisaba dagaal haba ku degdegin wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho waa kashana waxsiin baan ka aaminay beenna run baan ka aaminay yacni bakhaylnimo iyo gacan adaygnimo waxaan ka aaminay maartay inaan wax bixiyo deeqsinimo baqa gaalaadna dirir baan ka aaminay waa tii shisheeyaha uma xamile ahayd ta kalena waa sokeeyihii iyo islaam lama diriro iyo deeqsinimadii geesinimadaas ayuu ku sifoobay waxaa dhacday marka dhacdooyin baynu soo qaadanaynaa dhacdooyinka waxaa ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah ayada oo la dhex joogo ayaa niman ciise oo aabihii ku bilaabeen dagaal ul budh feed bay ku bilaabeen ma uusan dhaqdhaqaaqin uu iska taagnaaday shib buu yidhi dagaalkii baa dhammaaday oo aabihiibu aayar iska qaatay oo iska baxay maalinkii dambe baa qolyo u yimaadeenoo waxay ku yidhaahdeen cabdullahi iska waran soomaaliga markay iska waran tirahda nabad khayr waan fiicannahay haddii xataa uu 7 Mayda guriga kaga soo tegay waa nabad alxamdulilah rabbil caalamiin gurigan baan meydka kaga soo tegay ku oran qofka Soomaaligu waa tafaa'ul fiican wey balse xigmad buu soo ku jawaabay wuxuu yiri xalay uur ku taala ma seexan aabahayna taah ma seexan eegada uur ku taalo yacni tala xumada tolkay ay sameeyeen iyo saan uga falcelin karin baa uur ku taalo nin baa aad ulwaalaa gadoomahaye oo waalaaloobayo nin arkay uu fiiriyay raggii hore waxay nergarad bay ahaayeen wuxuu yiri war ninka sidan uu waalaa gadoomahaye ma ciddi hoosteed baa laga hayaa mise ciil sokeeyuu qabaa ciilka sokeeyaa ma gudan kartid oo qofkii maartid sokeeyaa ku waxad gudad kama ara gudan kartid oo waado un gacantaadan wax ku gaarsiisado gacantaadan kale aad ku dhufanayso adiga baa isdilaya oo moogta qof sokeeyaa adiga baa isdilaya hadaa waan ka ara gudan dhahdo guul ku gaari maysid ceeb iyo calaflaan iyo cadaab baad ka faa'iideysaa marka dhibka aabihiina wuu dhibayaa taaha aabihiina wuu dhibayaa waxna ma samayn karo wey faan waxaa marka waa dhacdo kale baa iyadana jirtay dhacdada kale cabdulla oo socota baa reer soo martiyey eeg hadda reer buu soo martiyey hadalkiisii maxaa ka mid ahay been run baan ka aaminay maskaxda ku hayso reer buu soo martiyey sheekadan
anigoo yar baan maqlay laakiin mar raba ma maqal meesha ka timid iyo meesha kasoo bilaabatay laakiin weligii waa aqaanay sheekadan reer buu soo martay habeenkii bilowta aroortii waa baxday waxaa la yidhi joog cabdalla uma baxay sidee maanta ducaan u leenaho dibi baanu qalanaynaa inoo joog bal wiil wuxuu yidhi mayo socod baa ii dhimane ma joogi kara macnaha socod baa ii reebane aan baxo idaaya waxaa lagu yidhi waaya haddaad baxdo reeraha aad sii mari doonto waxaad u sheegtaa inaan duco leenahay oo dibigii qalayno wuu iska baxo reerihii markuu sii marayo buu salaamay oo reerihiiba waxay ku yidhaahdeen reerka aad xalay la joogtay saa ka soo tagtay shalay waxay nagu yidhahdeen ducaanu leenahay oo dibi baanu qalaynaaye dibigii may qaleen wuxuu ku jawaabay dani haddayna ka sii dayn dani haddayna furin dantii haddayna furin dibi la xidhay baan arkayay eeg hadda dantii haddayna furin dantii haddayna furayn dibi la xidhay baan arkayay yacni dibi xidhan iyo mindiyo lisan iyo rag diyaarsan iyo waan qowracaynaaba aniga lagu yidhi laakiin dibi la gowracayna ma arkin dibi la qalahayana ma arkin ilaan gowraca iyo qalitaanka gowraca ka horeeya qalitaankuna de waa dooxidii haraka saaridda iyo sijibinta moogta been isagoo ka cararayaba marka wuxuu yidhahda anuu dibi dee taagan oo xidhan ba arkaye la sii dayndaana aanu mooji laakiin dibi la gowracay ma arkayni waa arrin yacni runtii uu kuu sheegayey iyo geesinimadii weeyaan dhacdo kalaa jirta ayada oo la degan yahay meesha la yidhaahdo godgod ayaa waxaa reerihii ku soo duulay gaale baa ku soo duulay dabeedna waa la qaxay oo si dagaalka looga diyaar garoobo baa maatidii iyo caruurtii baa meesha laga qaatay si la isaga celiyo oo loogu diyaar garoobo kabacdina habeenkii la qaxayeyba waxaa umushay gabadhii xaaskiiseed baa gabadh umushay maatadii iyo xoolihii baa la kahaystayoo looma baqaynin in gabadha la dilo qof dumara colaadaha nooca ee meesha ka dhaca dumarka lama dili jirin iyo caruurta iyo odayada iyo dadkaas maaragtay barmageedyada maadaama gabadha loo baqaynin waa laga tegay markii xagga la tagay oo caruurtii meel dee deegaankii kusoo hubsaday buu 2 riti soo qaatay uu soo labto gabadhiisa kusoo noqday markuu yimid yaa waxaa soo daba istaagay niman koox ah nin qaali oo ahaa lagama hadhna rag baa laga daba diray raggii baa ka daba yimid raggii markay ka daba yimaadeen bay meesha ugu yimaadeen war maxaad ahaydeenoo dee waanu dhibaatadii iyo colka iyo meeshaad socday baan ammaan ahaynoo waan kaa daba nimisaan kuu difaacno waxna kuula soo qabanno waxay intaa ugu dareen inay qarba kusoo tageen inay sahay ayna wadanin wuu fakeray isla markiiba deeqsinimadiisa lagu tusayaa 2 riti buu u qowracay raggii wuuna u qalay wuu ku marti sooray way ka dhargeen habeenkii dhan bay cunayeen subaxii bay cuneen dee rag laysu keenay xooggii maxaad ku taqaanaa gabadhii umush ahay iyo aqalkiiba tunkay ku qaadeen deegaamadii bay geeyeen taasna maxay ku tusaysaa deeqsinimadiisii dhacdada u dambaysaana waxay ahayd in dagaal dhacay oo oromadu soo weerartantay dabeedna in loo gaashaanka loo daruuray cabdalla raggii u jilibka dhigay dagaalkaas ee wacdaraa ka muujiyey ayuu ku jiray waa kii yidhi baqa gaalaa dirir baan ka aaminay waa ka dhabeeyey xilli dambe ayaa gaalihii waxaa la weydiiyey markii dee mar raba laysdiraa mar raba nabad baa layska waa layska sheekaystaa dagaalkii ka warraba waxay dhaheen dagaalkii aanu ciisaha la galnay waxaa ku jira bay nin jin ah jin kuma jirina geesi dhalay baa ku jiray oo iska dhicinaya gaalo iyo cid lamida ninkaas taariikhda magaca geesinimo la yidhaahdo sifooyinkaas ayuu leeyahay saa loo soo wariyey waxaa jira isna aadan cigaal nin la odhan jiray allahu naxariistee oo isaguna sifada magaca geesinimo ku sifoobay oo qaadan kara waxaa dhacday marka in xilli uu aadan uu ciisaha u talin jiray oo halkaa uu joogay iyada oo nabad laga xidhaya gaalaha oo meesha la fadhiyo ayaa nimankii gaalaha waxay arkeen sida ninka aadan cigaal loo xushmaynayo ee loo xurmaynayo ee loo qadarinayo ogaaskii oo jooga asagii uu dadka kala wenya dabeedna iyaga oo warwaryo uga jeeda iyo inay shaki kala dhexgeliyaan bay ogaaskii su-aal weydiiyeen waxay ku yidhaahdeen war ma adigaa taliya mise aadan cigaal baa taliya
oo ciisaha u taliya maxaa kagu dhacay ugaaskuna dee nin rageed buu ahaa aan la degin oo aanan hadal ka hoos baxaynin wuxuu yidhi ninka 12 aqal aabbaha u ah ee geed walba jooga waa aadan anigu waan duceeyaa difaac hadday noqoto iyo dagaal hadday noqoto iyo gar hadday noqoto ninka u xaydan waa asaga anigu laakiin waan duceeyaa buu yidhi waa hagaag taas marka waxay ku tusaysaa sida uu ninkaasi loo xushmeynayay ee uu loo qadarinayay waxaa kale oo ay soo wariyeen raggii taariikhyanada aadan yaqaanay beri asaga oo shirgudoon oo ciisaha shirinaya si looga wada hadlo berri oo kale ballan u xidhnaa canfarta iyo ciisaha nabad lagu kala xidhayo ayaa nin ordahayo qaylyahay xay ka soo galay dabeedna ninkii wuu qaylyahayaayoo geel baa la qaaday geel baa la qaaday buu leeyahay geel ayaa qaaday buu ku yidhi ciisa qaaday buu markuu arkay geel ciise qaaday inuu yahay oo geel sokeeye qaaday inuu yahay inuu xaajo uu niman kale oo isaga wax ka soo saari waayay inay geela qaadeen wuu iska gartayoo wuxuu yahay geel ciise qaaday waa geel dhallaan qaaday meel dheer inama jire shirka inoo wada dabeedna shirkii maalintii markii uu dhammaaday ee nabadii la xidhay nabadaana waxaa loo bixiyey maaxa ayaa maalintii ku xigtay buu geeli iyo nimankii haye u yimid wuxuu ku yidhi wargeela meel tigaad leh ma geyseen ciisuhu geel ma kala lehee kolba ninka haya ayaa dhaqaaleeye geela sii dhaqaaleeya carruurtii loo lisi jiray baan doonaya waan soo rarnay waa idiin keenayaa bal raganimada iyo kalsoonida hadda nimankii way hayaxeeno waxay yidhaahdeen aabbow geelan nooga tegi maysiday geelan kaxeeyo noo gelaasi waayahay aan kaxeyn intaan ka qaadin sababtaad geela usoo dhacdeen muxuu ahaa dabeedna sababtii bay u sheegeen waxay yidhahdeen arrinta noocaas baa nalagu sameeyey tiina wuu u xalliyey geeraar baa jira aadan wiilkiisa uu kula dardaarmay oo muhiimadda xeerka iyo axdiga iyo ummadda oo lagu dhex jira ay leedahay iyo dhagarta oo layska ilaaliyo lagu tusahayo reer bariisanayo bariiso uu ku lahaa buto ruux geliyey ma badbaadiye xeerkuye yacni reer iska nabad ah qofkaasina uu martigeliyo iyo cadkeed ku lahaa iyo xushmadeed qofkii colaad iyo dhagar iyo dhib iyo dhacgeliya xeerka markii lagu qaada ma badbaadinayo xeerku baarcad way ka hoyaadiye wiilkaygii baxsanaayow barkhadow inankaygiyow bulsho xeerka u yaala weligaa ha ka baydhin yaa bulsho xeerka u yaala weligaa ha ka baydhin yani midig iyo bidix midna ha uga dhaqaaqin aadana ninkaasuu ahaa geesiga ah ee geesigu dhalay ee sidaa ku caanka ah ninka saddexaad ee aynu soo qaadanayno waxaa weeyaan ninkii la odhan jiray abraar giire abraar giirada nin cajiib ah ayuu ahaa abraar wuxuu ahaa ninkii nabadda ciise iyo samaroon ay ku caanamaaleen xidhay buu ahaa nin adag oo nin rageed oo ragga kiisa adagoo birlab ah ayuu ahaa dabeedna dhacdooyinka isagana aan ka xusayna waxaa ka mid a arrin cajiib ah abraar giire xilliyadii uu talin jiray waqti ka mid a ayaa gumaysiga ingiriiska ee waqooyiga soomaaliya xukumi jiray wuxuu soo saaray wax uu uga jeeday mooyaane amar ah ragga ciisaha ah ee inanlayaalka ah ee samaroon ku dhex jira in si degdeg ah looga saaro go-aankaas ayuu soo saaray caaqiladii ayagoo amarkii fulinaya ayay soo rareen 9 nin oo inanlayaal ah oo gabdho samaroon ah qaba waxaa la soo dulmariyey reeraha la soo raray reer ay qaraabo yihiin abraar giire oo reer dudub samaroon ah wuxuu warkii gaadhay abraar giire ayuu hadalkii soo gaadhay nimankii caaqilada ahaa hadduu waraystayna waxay u sheegeen inuu amarka bixiyey dcga ingiriiska u fadhiya boorama ee kabtan walash
abreer giirre wuxuu caaqiladii ka codsaday in ay faraha kala baxaan reerihiina ay soo rareen wuxuu la furay ama la dejiyey reerkii xigtadiisa ahaa oo amarkii iyo bartaas ku jabiyey dabeedna ninkii baa maqlay gaalka ahaa dabeedna wuxuu u yeedhay oo ilaahay ii yimaada ninkaas oo isagoo raba inuu weydiiyo arrintaas wuu soo tagay nin oday uu soo kaxaystay wuxuu ninka odayga ka codsaday inuu faraqa ku soo qaato digo xerada adhiga inuu faraq dhuub antooba ka soo qaato sheekadana waan maqlay laakiin Soomaalidu meel laga keenay ma oga dabeedna sidii bay ninkii ugu yimaadeen intuusan hadal buu hadalkii ku bilaabay asagu wuxuu ku yidhi kabtan wala show ka waran haddii maanta lagu yidhaahdo dharka iska bixi adigoo oo qaawan suuqa Boorame kolla dhinac u soco kolla dhinac u soco ninka wuu yaabayo wuxuu yidhi arrintaas waa ceeb suuragal ma ah wuxuu markaa ku yidhi raggan aad rarayso iyo gabdhahani aniga cawradaydii weeyaano sidaasoo kale igu yihiinoo si wax suuragal ah ma aha arrintan inaan fulino saasoo kale bay ugu tahay dabeedna wuu yaabay intuu yaabanaabuu haddana ninkii odayga wuxuu ka codsaday miiska uu fadhiyo inuu digada dul saaro digadii buu miiska saaray wuxuu yidhi wala show kala saar digadan waxaad ii kala saartaa digada teebaa riye ah teebaa ida ah madaxuu gacanta saaro wuu yaabay war maxaad uga jeedaa biyo waxan maana anuu kala garan kara wi dabeedna ciisiya samaroon waa sidan oo kale ma kala garan kartid Soomaalina waa sidan oo kale ma kala saari kartid dad aan la kala saari karin ba waxa marka waxaad leedahay biyo kala rara dabeedna marka ninkii halkiiba wuxuu ka fahmay aqligan iyo xigmadani inay wax dhayalsan karo la iska dhaafi karaan ahay ninkii waa ka garaabay wuxuu yiri hawshaas halkaas aan ku joojinaynaa dibna ma taqaana ugu noqon mayno u yeeli mayno waxaan samaynayaa raggii xogaha ay siin jireen warka qaadan jiray baa rag xun ahaa xoga khaldan baa la siiyay oo dadka qaybinaya caaqilkan oo kale aan u baahannahay adaa nala shaqaynaya caaqilka guud baana ka dhigaya mushaar waa ku qoraya marka muxuu yiri giirre ma doonayo mushaarka caaqil guud oo darajo aan ma doonayo intaan hayn baa ugu filan intaan maamulana waa maamuli sidaan adduunka ha kala socdo dadkii baa la yaabay oo yiri maxaa kugu dhacay abraarow maxaa kugu dhacay ma lacagta qaadatid wuxuu yiri haddii aan ogolaado gunnada oo gaalku igu yeedhayo waxaan noqon nin gaalku leeyahay ee noqon maayo nin ummadu leedahay imisa maanta nin kale oo shisheeya dantiisa inay fuliyaan bas xilal Soomaaliyeed ku haya oo ku ordaya oo raadsanaya oo kuraas ku haysta oo ku ordaya inay qof kale oo shisheeya dantiisa ay fuliyaan oo dan ummadeed ba ayna gacanta ayna ku haynin geesi waa kan ee kuwa dhibaatada haysta geesi baynan ahayn dabeedna waxaa jirtay arrin kale oo iyaduna dhacdo kale jirtay nin yar intuu mataqaanaa uu ood ka boodu tala ka boodaya nin dhalinyaro oo ciise ah duulaan ay soo qaadeen bay ku boojeeyeen geel niman dhalinyaraa geel qaaday dabeedna warkii baa loo sheegay abraar giirre ninkii geela lahaa oo mataqaanaa nimankii geela lahaa oo is urursanaya buu arkay dabeedna wuxuu yidhi geelaa nin u dhaqaaqi karaa ma jiro waxaan hubaa in isaga oo la wado laynoo keeni doono dabeedna nimankiibaa waxay maqleen in uu abraar giirre hadalkaa yidhi raggaasna ay xigtadiisa yihiin oo jifadiisa ay yihiin geela iska leh halkaasay marka xigmaddaa daraaddeed bay iyo ku soo celiyeen eeg hadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa inoo soo diray xaakimna wuu ahaa dabeedna nebi maxamed ilaahay muxuu ku yidhaahday waxyaaba ilaahay ugu mana sheegtay waxaa ka mid ah jileeca iyo naxariista iyo hadalka macaan iyo fariinta mataqaana lutfiga ah waqfida janaaxaka lilmu'miniin ayuu ilaahay ugu mana sheegtay wuxuu ilaahay ku yidhi walow kunta fadan
غليظ القلب لانفضوا من حولك حداد نينكا كان أو حكم أدق أو حكم جعل أو قلف سن أو مرب بدن أو قيلب بدن أو علاد أوجاء هذا هان لهاي لانفضوا من حولك ساعة أنتي جيساga usoo fariistaan ma inan hogteenay way ka carari lahaayeen bal ninka fiiri meeshii ilma adeeridii uu oran lahaa orda geeli soo qabta iska celiya ragga uu oran lahaa muusan oranine wuxuu aayar yiraahday geela waa laynoo keenaya ka hara raggii markay maqleenna geeli bay keeneen way xiyeen hawshii dantay lahaayeen waa u dhameeyay waxaa kaloo inuu iyadana aan geesinimada ku sifoobay ninkii la oran jiray Bulaale Faarax nin asna geesi ah oo wuxuu ahaa la yaab leh nin baa hadda ka hor awr uu lahaa buu ka xaday laba riti buu ka dhacay ka boojeeyay wuu ka daba tagay awrtii ninkii wuu tagay wuxuu yidhi awrta maxaad iga soo dhacday wuxuu yidhi awr baana lahayn oo ritiba malihid miyaabi haa oo kaa dhab ah ahey haddaba way hadaad ritiba lahayn dee waaba khalad inaan kaa qaatee awrtan labadan anaa awr kale leh iska qaada ku yidhi iska dhaanso oo carruurtaada maartay u dhaanso ma nin baa maanta nin ku dhacay oo hantidaadii haysantaa u timaada odhan laha war maxaad u soo dhacday oo waan u baahanahay dee iska isticmaal dad u baahan tahay aad odhan lahayd may adoo reerkiinni wato qori wato ninkaasi waa nin oday ah waa nin beeshiisa beeldaajiyow ah waa nin awoodo inuu col oo dhan ku kiciyo waa nin awoodo waxba inuu ku sameeyo laakiin ma uusan samaynin ilaahay buu uga xishooday marka taasina mid bay ahayd beri dambe bay abaari dhacday arrin qiso cajiib leh abaar baa dhacday Hayle Salaasa marka yaa jiray wadanka yaa Itoobiya haystay abaartii markay dhacday marka dawladdu u tagay wuxuu ku yimid abaar baa dhacday dadkaygina uu baaba'ayaa deynna siiya aanu markuu roobku noo baraara gaadhnay xooluhu noo dhala aanu iska bixinno deyntii baa lagu soo xaaqay reerihii buu ka soo saaray abaarta dabeedna markaasaa dambe ee roobkii da'ay baa loo yimid waxaa lagu yidhi iska soo bixiya dee hanta xoolihii ilaa hadda maarata waad barwaaqowdeen oo roobka baa idin daaye iska soo bixiya dabeedna wuxuu ku yidhi ragga warmaha waaweyn sita ee 10 laxaad oo ay abaari ka reebtay xoola ka haysta soo idili maayaan haddana xoolahooda weydiiya saydeen haa goortii kale ilaahay wax keena mooyaane hadda uma socono hadda xoola kama helayna buu dhahay dabeedna waxay sameeyeen Bulaale intay la tageen bay adare ku xidheen xabsi adare ku yaala bay geliyeen ciise waa isu yimaaday ninkii qaaliga qiimaha badnaa baa la xidhay hantidii baa hanti badan baa la ururiyay waa la geeyay hantidii oo lacag oo jawaana ku jirta baa adare la geeyay harar kabacdina way arkeen waxay yiraahdeen hantidana hantidii unku naga qaaday ma dhanna haafkeedna ma dhanna hanti badanna way ahayd dee hanti qabiilada lagu soo badbaadiyay buu markii hore deeyntay dabeedna la noqday baa lagu yiri Bulaale markaa wuxuu yiraahday lala noqon maaye hantida aad keenteen keena dadkii xabsiga ku jiray gaal iyo islaam wixii meesha ku jiray wuxuu ku yiri wariyaa hanti u xidhan lacag u xidhan oo lacagtiisu ay macnaha de gar yar tahay dad fara badan baa marka soo saftay lacagtiisi cid walba oo ay xabsiga ka saari kartay oo meesha ku xidhnaa oo lacag lagu lahaa buu kaga bixiyay lacagtii marka way dhamaatay dadkii wuxuu bixin karana waa bixiyay noo soo haray boqor Hayle Salaasa arrintii maqlay wuu yaabay wuu u yimid war Bulaale maxaa sidan u yeeshay buu ku yiri dabeedna wuxuu yiri lacagtani aniga ifran weyday oo waxay furanaysay yaan ku furtay aniga way ifran weyday waxay furanaysay baan ku furtay qof marka ay furan karto taagnaa baan ku furtay xigmadiisa iyo deeqsinimadiisa iyo geesinimadiisa ka yaabay iyo sidoo dadkiisa u badbaadiyay iyo sidoo kuwan maanta ay u kala xigeen iyo sidoo ummadda ugu damqanayo dabeedna markaa boqor Hayle Salaasa wuxuu ku yiri aniguna adigaan ku fasaxay buu ku yiri shil lacag laguma leh geesinimada iyo go'aanka uu ninkaas soo qaatay iyo xigmadda isaga ilaahay ku badbaadiyay ihsaanka
إحسان هذا سمي إحسان بالله سمي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أبال الوناكسن وناك بأباله وناك أتسميسي أبال كسوة وناك هل جزاء الإحسان وناك ميوسن أبال مرين تسوءهين إلا الإحسان وناك المويانة مركا إلهي حقيس يا مركا ننكا سجن الله سما فلاي وحين يقول حاجة نك اللي يرادا علي الروبلة nin isna wuxuu ahaa cajiib ah oo la yaab leh waxaa dhacday in geel la dhacay oo ciisaha dhahiisa geel la dhacay geeli markii la dhacay baa loo sheego li geel baa la dhacay wuxuu ku yidhi nimanka geel la dhacay iyaga inoo keeni doone barta ayaa loo dhaafay dabeedna geeli baa la keenay waxay tabanayeenna wuu u oofiyey waxaa jirtay arrin xeerka aynu ku soo marnay oo uu ninkaasi ilaalinayay waxay ahayd waxaad geed ku helaysid gulufa ku doonan waana arrinta ciise ku kala badbaaday waana arrinta Soomaalida kale ay ku hodantay ee ku baabaaday way ee ana xoog liya muxuu iga hayn karaa una bari kale baa waxaa jirtay oo iyadana dhacday cali rooble wuxuu arkay nin caruur badan leh oo xoolo yar laakiin caruurtiisu badan tahay wuu waraystay wuu ogaaday ninkan in baahan inuu yahay wuxuu ku yiri niyow caruurtaaduna gaajoon mayso tayduna baraare iyo dharag meelaha boodboodi mayso geel irmaan iyo isugu soo xiray awru dhaansadana uu siiyey hantidiisii ayuu u bargooyey hadda ninkan halkaa uu ku arkay wax gaar ah oo mataqaana markaas ka dhaxeeyna ma jiro damqasho iyo odaytinimo uma arrinta u geysay waxaa kaloo dhacday marka laba jilib oo ciisaha ah oo Sacad Muuse reer guulana ah oo qolada asaga uu ka dhashay ah iyo walaaldoon qola ah oo Cali Hayiil ah ayay xurgufu dhexmartay xurguftii dhexmartay baa leeyahay laga wada hadlo geed baa la isugu yimid geedkii laga wada hadlo markii la yeeyay nimankii walaaldoon ee heer Cali Hayiil waxay ogaadeen hadduu ninkaasi joogo oo cali rooble geedka fadhiyo inaan ka garhelaynin dabeedna waa meel ilaahay wax ka wada wadee inaan unba xabad ku dhuftay odaygii dabeedna markuu inankii xabadda ku dhuftay qoladii reer guulane hubkay boobeenoo bartii dagaal iyo rasaas ka dhacdo 17 nin baa meeshii lagu dilay oo walaaldoon ah taladii ceel bay ku dhacday arrintii way fogaatay maalintii uu muruga badnayd bay ahayd oo arrintii yarayda dhibka yarada loo fadhiyay way fogaatay xigmad asagu uu leeyahay baa dhiig dambana ku badbaaday nabadina ku timid waa ninkaas saddex xabad ku dhacday oo dhaawaca oo sirqi ah yaani naftu ka sii baxayso aad u liita ayaa waxa la qabtay ninkii xabadda isaga ku dhuftay ee fidmadan iyo dagaalka dhanba oogay ee kiciyay dabeedna ninkii intuu soo qabsaday hoosta u gashaday baa wuxuu yiri nin aan bariyo xalay baa iigu dambeysay in aan martigeliyo oon xushmeeyo xurmeeyo u loogo xalay iigu dambeysay nin aan bixiyana maanta iigu dambaysa nin aan naftiisa badbaadiyo oon magan bixiyana maanta iigu dambaynaysa ee tolkayow igu bixiya ninkaas yaan laga taaban soo ninka xabadda igu dhuftay ma yaa laga taaban halkaas yuu tolkiisna uu arkay dee fikirka cali meesha uu taagan yahay qoladii kale ee ragga badan laga laayeyna ay arkeen ninkii gacan ku dhiglaaba sida loo badbaadiyey halkaasaa nabadii ayaa laga xiray taariikhyahanadu waxay markaa warinayaan in 17 gabdhood la bixiyey oo 17 gabdhood loo dhisay nimankii heer Cali Hayiil ahaa 17 gabdhood baa loo dhisay magtiina 10 halaadna ciis 10 ninna magtooda ciisoo dhan baa bixiyey 7 ninna reer guulana ayaa iska bixiyey waxaa la sheegaa in hablihii sanada kadib ay wiilal badan ilaahay siiyay wiilal badan ay dhaleen nabadina sidaa ku xirantay fikirka gabdhaha in la kala guursado gabdhaha la bixiyaa ugaas xasan yaa keenay baa la yiri dhacdadana waxay dhacday xilligaas 1900 markay taariikhdu ay ahayd وهجاج وحي لها مهديسة إن بوجي أي إنه أخريني مدة إن صاب لوني صدني شنطة 10 إنه كجلي قلنكي وإسكالها عبد الله حاج عثمان علي
ceeleeye inuu bartaa inoogu dhammaaday oo gunaanad aad ka aragto gunaanadku marka dee waa sheeko gunaanada weeye xeerna kuma jiro xusuusaad baa laga yaaba fara badan inay ku jiraan laakiin muhiimadda cashirkan ayaa inoogu dambeeya aan ku joojinaynaa halkaa iyo gunaanadka iyo gabagabadii baynu keennay aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaynu casharada aynu kusoo jirnay run ahaantii faraha badan cid kasta oo daawashadeeda ka qayb qaadatay iyo cid kasta oo igu dhiirigelisay aad iyo aad baan u mahad celinayaa akhyaar aan saaxiibanahay oo aanan dee fasax uga haysanin magacooda inaan sheego oo ku sugan jamhuuriyadda Jabuuti ayaan aad bartan uga salaamaya rag ugu qaali ah rag mas'uuliyiin ah rag ganacsato ah oo run ahaantii mar walba dhiirigelin iyo tilmaam bay la garab taagnaa waxaan aad af Soomaaliga adag ee meesha ku qoran khaladaad fara badan baan geystay oo gabadhac ah arrintaana waan idinka raali gelinayaa magacyada reeraha ee khalday iyo magacyada dadka ee khaldayay baa ugu fara badnaa waxa kale waa iska sahalo taana waan idinka raali gelinayaa inta dadaal baan islaha aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajeynayaa in buugaa kale oo qiimo leh ay iman doonto insha Allah taala halkaan in taariikhda Soomaalida aynu ku sii lafaguri doono haddii la buugaa kale oo fara badan waa inoo haya kani waa diri dhawa haddii la yiraahdo isaga laftiisa waynu dul istaagi doonaa iyo nuxurka ayaynu wada wadaagi doonaa taariikhda magaalada diri dhawa intaynu ku kulmi doono de qaybaha kale ee barnaamijyadeena qaybtan halka ayaan kusoo gabagabayn doonaa haddii la yiraahdo ciid wanaagsan oo insha Allah taala maxalligaynu kulan doonana waynu isciiday waynu ismac salaamayn doonaa xagga ciidana barnaamijyadeena inta kuma ekaan doonaan sida ugu xidhno channelka ballanteenu waxa weeyaan inaan garaadka dhalinyarada Soomaaliyeed aan taariikhdooda iyo dhaqankooda aynu barno inuu ku soo qaadno aad baad u mahadsantihiin waa Cabdiraxmaan oo idin Ramadaan Kariim wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh